waxaa maanta si farxad iyo guul ay ku dheehan tahay kusoo idlaaday tartankii ka socday warbaahinta Wadani FM oo ay sanad waliba ay qabato dalada Bulshakaab oo ah urur dhalinyaro ah oo ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaana maanta tartamay tartankii finaalka ah iskuulka Liibaan iyo Al-Mustaqiim waxaana iskuulada tartamay la weydiiyay min 7 su'aalood waxayna kala heleen iskuulka Liibaan ayaa waxa uu helay 12 dhibcood halkii iskuulka Al-Mustaqiim uu helay 16 dhibcood waxaana sidaasi guusha ku qaaday iskuulka Al-Mustaqiim sida uu ku dhawaaqay Ustaad Faisal Cusmaan Maxamed oo kamid ah guddiga dalada Bulshakaab u qaabisna tartankan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan maadaama xilligii Ramadaanka uu tartanka hakad ku yimid fatahadii biyaha webiga Shabeelle. Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أنا أقول فرحسنا إيمانتا إن مركزي مالنتي مدة بيسي تبتكي مش بركيسان رمضان كاسو هكي قيديسي دمبه بيبوحا فتحات مركز مقالة ساميسي كذبنا المركز هكيني إلا لها وهكيني كمل أهد iskuulada tartamayay annaga sharciyo waxaan oo lahaa in ardaydu ay yimaadaan xarunta warbaahinta iyadoo tartankan ay ahayd mid ay iskaga kaashadeen dalada Bulshakaab iyo sidoo kale warbaahinta Wadani FM marka waxaan go'aan ku gaarnay maadaama ardayda xaruntii aysan imaan karin haddana sababo aan u raadinay in taleefanada ama qadka ay markaasi galaan ama ay soo galaan ay tartanka kaga qayb qaataan haddana alxamdulillah waxaa saamixi waayay markaasi habkii maadaama ay dhacday in dadkii ay qax badan galeen maanta sida wanaagsan ee anshaxa leh ay noo ilaaliyeen waqtiga nidaamka iyo aadaab ahaan hambalyo labadooda maadaama final ay yimaadeen min 7 su'aal la weydiiyay dugsiyada Al-Mustaqiim iyo Liibaan Al-Mustaqiim ku hormaray madrasada hoose dhexe waxaa la weydiiyay 7 su'aal 7 su'aalood ee la weydiiyay ee xaq ay u lahaayeen 6 kamid ay ka jawaabeen lixdaas markaas ay ku heleen 12 dhibcood halka hal su'aal ay iska beeldareeyeen sidoo kale si ka faa'iideysi ah 2 su'aal oo hortimid ay heleen marka 12 ilaa iyo 4 dhibcood oo marka 2 su'aal ay heedo soo hareer martay dugsiga kale Liibaan marka la isku daro waxay halkaas ku heleen 16 dhibcood oo nadiif ah wadarta guud sidoo kale dugsiga hoose dhexe Liibaan isna waxa la weydiiyay 7 su'aal 5 kamid ay si toos ugu jawaabeen halka 2 kamid ay khaldeen halkaas waxay ku heleen 10 dhibcood sidoo kale hal su'aal oo si ka faa'iideysi oo hortimidna waa ay ka jawaabeen 2 dhibcood markaas meeshaas ay ku heleen iyo 10 dhibcood marka la isku daro wadarta guud waxay tahay 12 dhibcood marka dugsi madrasada hoose dhexe Al-Mustaqiim ee xaafadda Bundaweyn waxay markaas la imaatay 16 dhibcood wadarta guud halka dugsiga hoose dhexe ee Liibaan uu la yimid 12 dhibcood waxaan ku dhawaaqaynaa maadaama aan ahayn guddigii tartanka maanta in markaasi madrasada hoose dhexe Al-Mustaqiim ay ku guuleysatay tartan aqooneedkii warbaahinta Wadani misna dalada Bulshakaab ay markaasi qayb ka ahayd ama ay taabo gelinaysay iyadoona aan leenahay hambalyo maadaama aad ku guuleysateen dugsiga Liibaan kaalinta labaad ayuu galay hambalyo ayaan leenahay sidoo kale aadaabta iyo hadduu Ilaahay yiraahdana maalinta munaasabada xafladda ayaan markaa ku cadeyn doonaa si live na warbaahintaad kala socon doontaan iyo sidoo kale qaybta marka ay ku leeyihiin dhanka iyo YouTube-ka Wadani radio waa Wadani TV and radio kaasoo aad markaasi ka daawan doontaan marka hadduu Ilaahay yiraahdo madrasada Al-Mustaqiim waxay ku guuleystay tartankii waxayna leeyihiin maanta ardayda xaflada la qaban doona hadduu Ilaahay yiraahdo oo maamulka macallimiinta iyo guudaan ardayda iyo marshaf ay ka soo qayb gali doonto aan soo sheegi doona xilliga la qabanayo iyo goobta ay ka dhici doonto insha Allah sidoo kalena maanta waxaan markaasi go'aansanay in koob ay yaalo marka la guddoonsiyo si hadda markaasi live na ardayda markaasi in markaas ay studio ku soo wada xaadiraan ayagoo dhanna waa ka rajaynaynaa ama waa ka codsanaynaa si koobka loo guddoonsiiyo ayna xur u yeesheen dugsiga Liibaan isna hambalyo leenahay kaalinta labaad markaas soo galay dhanka kale waxaa dareenkiisa cabiray mid kamid ah ardayda maanta ku guuleysatay tartankan ay qabatay dalada Bulshakaab anigoo lidhaay magacayga Daqan Ali Iimaan oo ka socda madrasada Mustaqiim waxa dhaaya dareenkayga bariga oo ku qaadanay Wadani FM waxaan dhaayaa in aan ka guuleysanay iskuulka ku guuleysanay waxa dhaaya farxad weyn ay noo tahay aniga iyo
dhammaan ardayda la socoto waxaan horta inta ka salaamayaa walaalihii oo dhan iyo sidoo kaleento macallimiinteyda iyo maamulkeyga ustaad khayr iyo sidoo kaleento macallinkeeda ustaad cali suyaan iyo sidoo kaleento macallinkeeda macallin yaxya macallin yaquub waxaa kaleento sidoo kaleento macallinkeeda faysal yare ka salaamaya iyo dhammaan walaalaheeda ila socoto oo ay farxad weyn oo nala qaadatay in ammaano isku soo wada duub tartankan maanta ay ku guulaysteen madrasada almustaqiim ayaa waxaa ku tartamayay xilligii ramadaanka ilaa iyo 26 iskuulood kuwaasi oo laga soo kala xulay qaar ka mid iskuulada ku yaala gudaha magaalada Beledweyne iyo degmada Jallaqsi waxaana maanta soo idlaaday tartanka waxaana kaalinta koowaad iyo labaad kala galay iskuulka almustaqiim oo galay kaalinta koowaad halka iskuulka Liibaan Baraafad wuxuuna sidaasi ku galay kaalinta labaad cabdinuur cusmaan aadan carays idaacadii TV-ga caalamiga wadani FM Beledweyne